goormad isleedahay in uu kugu dhacay cudurkani coronavirus? cudurkan wuxuu ugu dhacay bil ka hor kowdii bishii aan soo dhaafnay waxaan dareemaa anoo shaqaynayo in xanuun feebar iyo madax xanuun iyo laf xanuun waxaan go'aansaday inaan dib ugu soo noqdo gurigeyga oo aan isku karantiilo guriga waxaan joogay ilaa 3 maalmood waxaan ka gooyay cuntadii waxa igu soo saaciday dhaxan iyo feebar samabadii oo hawada si fiican qaadan waayay aniga reerka waa tashanay waxaan go'aan ku gaaray inaan dhakhtarka la xiriirno dhakhtarkana way la qarareen ilaa markiis waxay ku dadaaleen sida ku badbaadi lahaa ilaa badbaadada haayo laakiin isbitaalka si fiican ay ugu dadaaleen waxaan ku jiray 27 maalmood kadibna aniga caafimaad qabaan dib ugu soo noqday gurigeyga. maxamed marka xagee ayaad isleedahay in cudurkani uu ka soo raacay haddaad dib aad u milicsatay? wallahi waxaan isleeyahay ninka ugu maxaa la yiraahdaa silaalis badaraata isleeyahay laakiin waxaan ka shaqeynaa gaadiidka dadweynaha ka shaqeynaaye ma isdhihi karo qofkaas ku qaadsiiyay ama meesha soo kaaga yimid laakiin mar hadda gaadiidka dadweynaha awooda mar walba inuu taxadirkaada badnaada fiicneed waa taxadirayay 100% waa taxadirayay laakiin sidaan u malaynayo bahashan cudurkan inuu sibiq kugu galo sasan aan rajaynaya. marka isbitaalka marka lagu geeyay daawo ceenkee ayaa heshay isbitaalka waxa leeyahay dadka ugu daran waxay galaan qaybta intensive wardka ama gargaarka degdega oo qalab lagu xiraa neefsiga ilaa heerka ma gaartay? wallahi waxaan gaaray heer inaan kooma galo 15 maalmood aan adduunyada wax wararka haynin laakiin waxaan ka soo kacay gacantayda midig oo faleebo ku suran tahay qoortayda waxa ku suran baalka cuntada la iska siinayo gacantayda bidix wax dhiig u eg ku socday laakiin inta waxaan muleynayaa in kulli ku dadaalayeen in xalidada sida soo badbaadina qalabka oo maxalida hawada oo aad u wanaagsan oo asleeyahay kaas la aadtiisa mabal noolaatam ilaa amarkiisa laakiin waxa asleeyahay waxa ku badbaaday dadaalka ay sameeyeen xalidada dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka iyo hawadaas oo aad u wanaagsan. waan gartay marka maxamed inta xanuunkan uu ku hayay waxa ugu darna xanuunka ugu darnaa ee aad ka sheegi kartid hadda cilmi baarista maalinba dadkan culimada waxbay ka ogaadaan cudurka hadda waxaa la ogaaday in dhammaan xubnaha jirka bini'aadamku uu saameeyo xanuunka oo coronavirus marka adiga ahaan wixii kugu darnaa ee aad ka sheegi karto? wallahi horta dhakhtarka maalintii ugu dambeysay oo ii sheegay aniga ma ogeyn inta koomadaan ku jiro ma ogeyn wax ihay meel xanuunays laakiin waxa ugu daran oo familkan loo sheegay laakiin anigana maalintii soo baxay la ii sheegay waxa ahayd in keliyahiga daciif noqdeen samabada ee halis galeen laakiin intaba lagu dadaalay in la soo keliyaha la soo kiciyo samabadina maxaa la yiraahdaa sidoo soo noqdaan anigana ma qaban wax cudur oo yaani igaara waan lahaa ma jir ilaaha markiisna intaas la ii sheegay yaani keliyaha ay daciifeen samabadina ay hawada si fiican qaadi weysa laakiin intii lagu dadaalay markaas soo kacayeen 19 bishan aan soo kacay 19 bish markaas soo kacay waxa la ii sheegay igu bishaarey 15 maalmood aan jiifin cudurka hay markaas soo kacayna aan ka caafimaad hadda ka waran tabartaadii iyo maxaa la yiraahdaa tamarta aad leedahay maadaama 27 cishaad isbitaal ku jirtay oo 15 maalmood ka mid ah kooma ku jirtay? wallahi waa dareemi kartaa qof iska jiifa marqii aan shaqaynayn guriga guri xoogaa si weyn aan haystaa waxa la igu yiri ilaa 7 ama guriga ku dhex soco gacnahayga hataa ma qori karaan maxaa la yiraahdaa bi hadda SMS aan ku soo qorayo kale ma qori karo sababtoo marqaha waxa la shaqeeyaan jirka dhan la shaqeeyaa marka xoogaa tabardaradaas aan dareemaa laakiin maalin si dambe ka doortay fiicnaanaya sababtoo markii hore social gain jiray maxaa la yiraahdaa meel walba baad laga caawin jiray laakiin hadda nafs ahaanteeda meel walba aan waxaan doonaa. ugu dambeyntii maxamed bal ka waran aragtidaada hadda markaad ka soo kacday xanuunkani iyo ka hor intuusan kugu dhicin maxaa isbedel ah oo aad ka sheegi kartaa? wallahi horta waa aaminsanaa cudurkan in maxaa la yiraahdaa uu yahay cudur halis oo jira ka horna waa aaminsanaa kadibna waa aaminsanaa laakiin anaga Soomaali ahaan waa madax adag nahay sababtoo ah maqaayada marka soo qadeeyay marka soo baxay wiila iyo isku shaqanaay ilaa 5 qof la taagnaayeen hoosta iska jiray laakiin aniga markaas ma qabin meel geesan ka istaagsanaa hay iyo warfan fiicanda shaqada iga wareystaan waa iska shaqaysanaya shantooda waxa ay sheegeen inuu cudurku wada dhacay laakiin waxa wanaagsan oo aad u wanaagsan in nafta bini'aadamka la badbaadiyo naftadana ay badbaadiso oo aanan hoosta la iska gelin oo aan maxaa la yiraahdaa Soomaalida waa madax adagna anaga sida Soomaali u nahay waxa wanaagsan in madax adayga la iska dhaafo guryaha la isku haayo maxaa la yiraahdaa anaga hadda ma joogno wadan gaajo ma joogno oo ma la dhahayo nolol maalmeedkan aan la ordayna haddii aan la ordaysidna hadda meel laga shaqeeyo ma jiro wanaagsan guriga la joogo baalkana la aamino inuu dilaaha halis yahay. waa tahay aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdulla xasan
oo ku magac dheer CD oo dhawaantana ka soo kacay cudurka coronavirus iyadoo 27 cisho ku jiray isbitaal 15 ka mid ahna uu koma ahaa